asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale casharadii aqoonkaal.com casharkan waxaan ku baran doonaa dhismaha websayteka ama naqshadaynta websayteka ee loo yaqaano web design casharadii hore ee aqoonkaal waxaan ku soo baranay xeerarka asaaska u ah dhismaha websayteka ee ah html iyo css haddaba meesha ayaan uga sii socon doonaa horay innagoo xeerarka asaaska adeegsan doona ayaa waxaan samayn doonaa naqshada guud ee websayteka casharadan xiriirka markaan dhammayno insha allah waxaan dhisi doonaa website muuqaalkiisu yahay sidan oo kaleeto marka website ka kooban kor oo sumadiisii leh dhinaca midigta ah hoos iyo dhexdii wax lagu qoraayay ama meeshii qoraalka lagu qoraayay iyo qayb laga hago oo linkiyada kuu sii xirinaya linkiya kaleeto marka waxaa xusuusnaanaysaa casharadan aan baran doono ee web designka waxay ku xiriirsan yihiin casharadii hore ee html iyo css waxaan mar ka soo qaadaynaa qofku inuu soo bartay casharada hore ee ku qoran aqoonkaal.com marka asaaskii hore waa inaad taqaanaa dib ugu noqotaa haddaan hore u soo baran inaad dib ugu noqotid casharadii hore ee asaaska ahaa marka kuwaa soo dhammaysid aad soo aadid ama timaadid casharkan aan u bixinay web design ama naqshadaynta website marka haddaan guud mare ku samayno asaaska ama dhismaha websiteka waxaa marka hore la sameeya wax la yidhahdo xog ururin oo maxaa websiteka loo dhisanaya waa inaad taqaanaa sababta websiteka u samaysanaysid iyo waxaad ka rabtay websiteka inuu kuwa qabto markaas ayaa waxaa la degsadaa qorshe ku saabsan sidii qaabkii websiteka loo dhisi lahaa qorshaha waxaa ka soo dhexbaxaya markaas naqshadii oo websiteka la naqshadaynayay taas oo casharada inay ku saabsan yihiin waxaa ku xigi doonaa markaas in la hirgeliyo oo websiteki la daabaco kadibna loo sameeyo suuqgeyn oo xaysiis loo sameeyo ama website kale lagu sii xiriiriyo markaa la joogteeyo oo qoraaladii lagu qoraayo la joogteeyo marka waa guudma wuxuu maraa marka meertada isku xiriirsan ayuu maraa xog ururintii qorshayntii naqshadayntii hirgelin suuqgeyn joogteyn markaas la joogteeyo waxay noqonaysaa markaa in xogtii joogteynta ka soo baxday la ururiyo marka haddii loo baahdo naqshada wax laga bedelo saasuu marka u soconaya waa meerto weye joogta ah marka casharadan ayaa guud markaa ah waxaan annagu marka hadda aan baranaynaa naqshadayntii guud oo websiteka hadda aan soo aragnay wuxuu ka koobnaa saddex qaybood ah kor hoos iyo dhexdii oo dhexdana ka kooban tahay midig iyo bidix oo bidixna lagu qoraayo qoraalada caadiga ah ama dhexdii guud noqonayso marka waxaan u dooran doonaa midab ayaan u dooran doonaa marka qaybahaas waxaan u dooran doonaa midab tusaale ahaan kor waxaan ka dhiganaa buluug hoos waxaan ka dhiganaa buluug xigeen dhinacan waxaan ka dhiganaa ciid midab ah dhexdana caddaan waxaa noo soo baxaya markaas website muuqaalkan leh ayaa noo soo baxi doonaa marka waxaa xusuusnaanaysaa casharkan inta aadan bilaabin casharada soo socda inaad marka hore xeerarka asaaska ahaa ee html ee ku jira aqoonkaal.com aad dib u soo bilowdid haddii aadan hore usoo wadan aad u soo baran marka beijka hore markaad soo gasho aqoonkaal dib meeshana ka eegaysaa macnaa casharadii ugu horreeyey meeshay ka bilaabanayaan ma fahanti marka kow laba saddex waxaa laga yaabaa inuu saddexaad oo kaleeto ka soo bilaabmo hordhaca casharka koowaad ka soo bilaabmo eeg marka wuxuu ka bilaabanayay cashar koowaad ee baro html marka inaad dib u noqotid casharadii hore ama html hordhaci waa kana meeshana ka wada hordhaca casharada html ku baraaf soomaali hadda waxaan baranaynaa kan waxa weeyaan wuxuu noqonayaa naqshada websiteka ku baraaf soomaali laakiin marka hore soo barataa casharadii ahaa html ku baraaf soomaali oo ahaa habka loo dhiso xeerarkii guud ee htmlka iyo css-ka intaas markaan isla fahamnay haddaan dib ugu laabanno dhismihii guud ee websiteka waxaan idhi waxa weeyaan waa meerto marka waxaa lagu horreeya xog ururin xog ururinta maxaa laga wadaa marka in marka hore la og yahay waa maxay ujeeddada websiteka loo dhisayo ujeeddada marka waxa weeyaan waxaa ogaanaysaa ujeeddadaada inaad ku salaysid macaamiisha u yeelan doono websiteku websiteka waa maxay ujeedaysu ma website ganacsibaa ma website warbaa ma website madariso lagu dhisayaa ma dukaan miya waxa weeyaan makhaayad miya bakhaar miya marka waana taqaanaa macaamiishaada waayo dhismihii waxaa lagu salaynayaa macaamiishu noocay noqonayaan oo tusaalahaan haddii uu yahay dugsi yahay ama iskool sare hadduu yahay macaamiishaada waxay noqotaa macnaa waxbarashadii ku saabsan dadka ama dugsiga sare waxyaabihii looga baahnaa hadduu yahay dukaan dharkana waa inuu ku salaysnaadaa dharkii la gadaayey iyo noocyadii dharka la gadaayey marka macluumaadku marka wuxuu ka imaanayaa macaamiishuu ka imaanaya in lagu saleeyo nooc ay u baahan yihiin kaasoo faa'iido u leh macaamiisha waayo macluumaadka aad samaynaysaa waa inuu ahadaa mid faa'iido u leh
dadka macnaa u yeesha mujtamaca ama bini'aadamka u faa'iideeya waa noqdaa waxaad daabici doontid taasoo marka waxay noqonaysaa yoolkaaga ugu dambeeya marka ujeeddadii waxa weeyaan waa macaamiisha in loo faa'iideeyo lana qoro macluumaad u faa'iideynaya taasoo yoolkaaga ugu dambeeya ah taa markaa isla garatid oo meel isla dhigtid ayaa marka waxaa ku bilaabanaya qorshihii guud oo aad kharashka ugu talagashay website-ka maxaa u qorshaysay maxaa kuu degan oo macnaha lacag meeqa ugu talagashay in lagu dhisaan gareeyo ama lagu naqshadeeyo taas marka waa inaad ku xisaabtantaa ama inaad adigu baratid cilmigii oo cilmigii naqshadeynta baratid sida casharada hadda aad daawanaysid mar hadda cilmiga naqshadeynta taqaanid macaamiishana taqaanid adigaa markaa web design isu noqonaya oo mashruucaaga u dhisanaya website insha allah waxaan rajeynaya marka in adigu aad saa u dhisan garaysan oo dad kale xataa u dhisan garaysid markaa baratay casharadan si isku xiriirsan qorshaha marka waxaa ka soo baxaya in la diiwaan geliyo domain wax loo yaqaano domainku waa magaca sida aqoonkaal.com waa domainkii marka waa la diiwaan geliyaa oo waa in marka hore magacu kuu diiwaan gashan yahay marka magacii la diiwaan geliyo ayaa waxaa la yidhaahdo martigeliye ama hostigu marka waxa weeye waa combyuter yaalla meel durugsan oo shirkad aad ka kiraysanaysid si macluumaadkii websiteka lagu daabacayo aad ugu xiraysatid hadhow marka waxaa la iswaafajinayaa domainka iyo hostiga ayaa la iswaafajinaya oo si isu maqlaan marka macaamiisha hadhow waxay la xiriirayaan iyagu hostiga ama martigeliyaha bay macaamiishu marka la xiriirayaan qaabka marka tan loo sameeyo waxaan insha allah baran doonaa marka aan baranno casharada naqshadaynta aan baranno hadda waxaan xoogga saaraynaa naqshadaynta websiteka oo aan nidhi marka hore qalin iyo warqad baa qaadanaysaa qaabka marka aad mar haddaad taqaanid macaamiishaada taqaanid intuu ka kooban yahay websiteka aad taqaanid markaa qalin iyo warqad qaado iyo buug ama warqad iyo qalin rasaas ku sawir marka waxaa ku samaynaysaa marka wuxuu ka kooban yahay maxaa ugu baahanahay waxaan u baahanahay macnaha inuu noqdo dugsi miya wuxuu noqonayaa maqaayad miya wuxuu noqonaya markaas wixii aad ku salaynaysid markaasaa qaybihii waxaa ku samayn kartaa haddaa rabto barnaamijkii aan u bixinay barnaamijyadii aan soo baranay mid ka mid a oo ahaa sida inkiescape oo kaleeto ama gimbis baad haddaa rabto ku samaysanaysaa naqshadii guud oo midabadii ku samaysanaysid markaasaa waxaa u imaanaysaa xeerarkii aan baran doono si uu kugu soo baxo muuqaalkaa rabti markaas ayaa la hirgelin doona la daabici doonaa marka innagu hadda waxaan xoogga saaraynaa casharadan xiriirkaa oo ah dhismaha websiteka inaan baranno naqshada guud ilaa aan soo saarno website muuqaalkan leh marka u diyaargarow casharadan isku xiriirsan oo ah dhismaha websiteka ku bara af soomaali halka ayaan ku joojinaa casharkan insha allah maantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wabillahi towfiiq